Garsooraha heerka caalami ee dalkeena Soomaaliya Cumar Cartan ayaa maanta waxa uu ka mid ahaa garsoorka sida weyn u dhexdhexaadinayay kulan ciyaareedka maanta u dhexeeya kooxaha Gaadiidka iyo Horseed oo ciyaar aad u xiiso badan markaasi ka dhacday garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho. Cumar Cartan oo dhowaan ku guuleystay garsooraha ugu wanaagsan qaaradda Afrika ayaa markiisii ugu horeeyay ee maanta bulshada u soo daawasho tagtay kulan ciyaareedka u dhexeeya kooxaha Horseed iyo Gaadiidka uu ku soo bandhigay biladda qaaliga ah ee dhowaan uu ku guuleystay markaasi biladda ay siisay qaaradda Afrika garsoorka ugu fiican uu markaasi ku guuleystay. Garsoorahan heerka caalami ee qaranka Soomaaliya matala ayaa waxa uu gaaray darajadii ugu sareysay ee qaaradda Afrika isagoona la filayo in uu ka sii gudbo oo gaaro guulo kale oo aad u fara badan oo markaasi uu noqon doono hadduu ahaado garsooraha ugu wanaagsan ee dunida maanta. Cumar Cartan oo markaasi hadda ka mid ah garsoorayaasha kuwa ugu da'da yar ee qaaradda Afrika iyo kan horyaalka dalkeena Soomaaliya ayaa waxa uu door weyn ka qaatay ciyaaraha dalka iyo sidoo kale dibadda, waxa uuna u soo hooyay sumcad, sharaf, karaamo iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Taageerayaasha galabta ayaa markaasi qadariyay garsooraha heerka caalami ee qaranka Cumar Cartan oo markaasi lagu soo dhaweeyay garoonka markii uu soo galay, sidoo kalena biladda uu soo bandhigay aad ayaa loogu riyaaqay oo markaa waxaa halkaasi sacab qiiro leh iyo sidoo kale marxabeyn aad u sareysa ay ku soo dhaweeyeen daawadayaasha ciyaarta u dhexeeyay Gaadiidka iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Horseed oo iskaga horyimaaday tartanka Janno Daawud qaybta kama dambaysta ah ee markaasi loo gudbayo qaybta xigta ee semi-finalka. Ciyaartan ayaa Cumar Cartan uu dhexdhexaadiyay waxayna ahayd ciyaartii ugu wanaagsaneyd garsoorka uu markaasi maanta ku soo bandhigay garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho. Dhammaan kooxaha dalka iyo sidoo kale taageerayaasha ayaa bandhigga cajiibka oo ku jira Cumar Cartan ku riyaaqay, waxayna u rajeynayaan mustaqbal midkan mid ka sii weyn oo horumar weyn ah. Waxa uuna la filayaa in dhowaan tartamada kale ka dhici doona qaaradda Afrika iyo kan markaasi World Cup-ka laga filan karo Cumar Cartan inuu guulo wax ku ool ah kusoo gaaray isagoona ka mid noqday garsoorayaasha u gudbay in ay markaasi dhexdhexaadiyaan tartamada World Cup-ka oo dhowaan garsoorayaal kale oo qaaradda Afrika ka tirsan ayaa iyagana u gudbay oo markaasi qayb weyn ka yahay Cumar Cartan.